maxaad ka taqaannaa taariikh nololeedka la xamiistaha weyn ee xasan sabriye afrax xasan gareed maqaalkan maanta waxaan kuugu soo diyaariyey taariikhda kooban ee xasan gareed ku saabsan aabbaha laxamada xasan sabriye afrax xasan gareed dadku inta badan waxay garan og yihiin marka loo jaleeco dhanka iyo sugaanta aas-aasaha heesta oo ah abwaanka curiya heesaha iyo fannaanka ku luuqeeya heesta balse waxaan idiin soo gudbinayaa qudaarta suugaanta oo ah laxameeyaha heesaha haddaan si kale u rogo shakhsiga heeska u yeela nuxurka ama macaaneeya luuqda waana mid ka mid ah laxamiistayaasha ugu qaalisan geyiga Soomaaliya xasan sabriye afrax xasan gareed inta aanu u gudagelin daawade sheekada muuqaalkan waxaan kaa codsanayaa inaad YouTube-ka subscribe inoo dhahdo like-tuna waxayna dareensiinaysaa inaad ka hesho sheekadan haddii aad Facebook naga daawanaysana page-ka like inoo dheh si aad ula socoto sheekooyinka noocan aynu ku bilownay xasan gareed waa shakhsiga sheekadan ay ka hadlayso waxa uuna dhashay sanadkii 1951 waxa uuna ku dhashay gobolka Galgaduud gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb isagoo aad u daayar ayay reerkiisa u soo guureen tuulo la yiraahdo Loobaar oo ka tirsan gobolka Hiiraan isla waqtigaasi kuma sii nagaan halkaas oo waxa ay reerkiisa u sii guureen degmada Aadan Yabaal waa kan isagoo ka sheekeynaya halka uu ka soo qaaday duulaanka fankiisa meel la yiraahdo Aadan Yabaal kaloo yar beer baan meeshana looga sameeyey aabba ka sameeyey dabeeto anigoo owr dhaana wada oo dhaamiyey ayaa waxaan ka maqlay sameecad hees kaban lagu tumayo marka anna waan kala wareegay dabeed wixii meesha ka dhawaaqay sanduuqi waxay ahayd heella qaraamiya waxa qaadayay maxamed jaamac joof oday dhintay oo xuseen baajul la oran jiray tumayay 13 jir ayuu ku bilaabay fanka 13 sano oo kale waxa uu ku jiray tijaabada fanka ma jirin koox gaar ah oo fanaaniinta soo saarta balse muhiimadda ayaa ahayd markii loo arko inuu yahay qof wax soo saar leh in si toos ah loo shaqaaleysiin jiray 1976 ayuu ku soo biiray hobolada qaranka Waabari waa kan isagoo wareysi ku sheegay heeskii ugu horeysay uu la xameeyo xasan gareed qofkii u dhiibay iyo sababtii loogu doortay intaba 60 maad soo galay 63 aan bilaabay fanka dabeeto waa inaad banaanka ku soo qalin jabisaa markaas tigaysaa meesha fanku joogo kabacdi 67 baa lay qoray shaqada waxaa ugu horeysay hees la yiraahdo sida canabka beeraha oo qaado Halimo Khaliif Umar iyo kulo ay qaadanaa waxaan filay abwaan deeg baa lahaa maxamed deeg marka riwaayadiisii ku jirtay masalquuda caashaqay dadnimada aqoonsa iyo naabiisay dhaqankii joof iyo wada qaadayeen marimus marka sidee baad yani heestan sidee lagugu dhiibay markii ugu horeysay ma laxanka lagugu tuhmayay oo yaasiin abwaan deeg baa ku dooray ma labada fanaan baa ku ma asagu waxba iima doorin ayaguna iima doorine codka eraya kalaan anigu ku samaystay markuu erayadii ii sheegay ayay tan isla ekaadeen xasan sabriye afrax xasan gareed waxa uu ka mid yahay aabbayaashii fanka Soomaaliyeed ee barisimaadka nuxurka macaanida leh u yeelay heesaha mulaxan gareed waxa uu ka mid yahay laxamiistayaasha loogu jeclaa taaliifta laxamada kuwooda ugu macaan oo ilaa ay haatan la dhageysto xasan gareed waxa uu sameeyay qaar ka mid ah heesaha Soomaalida kuwooda loogu jecel yahay heesahaas inta aan ka xasuusto
uu la xameeyey waxaa ka mid ah heeskii tubeec ee hooyo guryasama allahayow heeskii minankiinni ee tubeec iyo magool wada qaadeen kuluc haddii aan u jaleeco heesaha xurmodaran dhoof sida ma isku qabannaa badda haruub caashaq kuluc iyo harwo magool heesaha webiyo isku ooman soomaali dhowlaay iyo masale gur caashaq iyo heeskii sida canabka beeraha ee magool iyo kuluc wadajir u qaadeen heeskii allaylee jacaylkii jar buu iga riday xasan diiriye heeskii fiidmeerta duusha annoo waalan uu waagu ii bariyaa waan kuu warramayaa oo qalila qaado allahayow nin daacada shankaroon iyo ina mooge ay wadajir u qaadaan axmed gurey ma u dhimanna shankaroon ay qaaddo ninkii qeyrkii loo xiiray isla shankaroon ay qaadayso ku jar hadalka xasan aadan samatar weeshaan gadoodta geeska cidda gelisay oo xasan aadan qaado heeskii kuluc qaaday inaad qurux ku caan tahay cidna kuuma diidana maxamed mooge heestii saxaraay ha fududaan arraxmaan heesaha ruwaayaddii aqoon iyo afgarad cigaal iyo shankaroon heeskii sida haragigiman heesaha muuse ismaaciil qalanleh ubaxoo dilaaco heeskii qalamjalam cigaal iyo shankaroon heeskii sida haragigiman halkan kuma soo koobi karo heesaha uu la xameeyey mulaxan xasan sabriye afrax xasan gareed balse qaybtii koowaad ayaa halkan ku soo afmeerayaa daawade haddii aad ka heshay muuqaalka leeg saar si ay u gaaraan saaxiibo badan oo aad u jecel sugaanta la soco qaybta labaad iyo sheekadan وحبيان حنابيني مركان سو حسوستي حوالي ذناقود رقودا حميسي رقودا حميسي أذن عينك كسري يا حيركا كوما ديغانيني حديقها